dhalinyaradii waxaan daraagiska isticmaalayay ee bulshada dhibaateynayay ee wax badan oo kamid laga cabanayay wax badan oo kamid in badan oo kamid waa ka tanaasuleen waa uga mahad celinayna dhalinyaradaasi in badan oo kamid way nala shaqeeyaan xogayna siiyaan qabdaradii iyo daraagiskii iyo muxuu ahaa dhici iyo hoogi iyo bay ay ku dhex jiraan way ka baxeen uga mahad celinaynaa waa wiilashaynii waa ilmahaynii waxaan u rajaynaynaa baraare iyo bashbash iyo inay si wacan ay meelahooda ugu noolaadaan xaafadooda waxbarashada ay ku dadaalaan howlahoodana ay qabsadaan waxaan rabnaa intaa kadib waxaa soo korortay tiim isku xiran burcad ah bulshadii dhibkii halkeeda uga sii hayay halkaanaan keennay in badan oo ka mida warbixinaan ka qornay ehelkoodaa damiintay in dhibkaa ay ka tanaasulayaanay noo sheegeen halkeedii mushkilada ka sii wadeen raggan gadaashyada ahaa ka mida mid mid ayaan halkaan u keennay ehelkooda mid midaan ula kulannay inta aanan markaa haleelin taleefanaan ku raadino waa la hadalnay hase ahaatee dhibkoodii waxay noqdeen caadaystayaal dhibka iyo tuuganimada iyo midiya ku qaraabka caadaystay waxaan uga mahad celinayaa booliiska degmada iyo maamulada waaxaha gudoomiye waaxeedyada iyo maamulka guud ahaan oo iska kaashaday in dadka noocaasuhu inta dadka soo dhacaan oo dhibaateeyaan xaafadooda u hoydaan si nabada sariirhooda u seexdaan ilaadan kale u casheeyaan subaxdii haddana usoo qaraab tagaan bulshada inaysan suurto gelin waa laga howlgalay kuwa ugu dambeeyana xalaa la soo xiray shalay ilaa muxuu habeen hore ilaa maanta ilaa xalay ayaan xogtooda iyo muxuu la iska kaashanayay waa la soo qabtay waa kuwa gadaashayda fadhiya waa dadkii caadaystayaasha ahaayeen diiday inay xumaanta ka tanaasulaan ku talagalay in ay ilaadan kalehe mar kasta ay gabar Soomaaliyeed amba iskuul u socoto ama suuqa ka soo adeeganayso iyo hooyo Soomaaliyeed inay ka ooyisiyaan ku talagalaan annagana waxaan mas'uuliyaddu qaadnaa waxa waa inaysan dhicin taas waa kuwana iyagana sharciga waxay ka helaan leeyihiin waxaan rabnaa dabcan saan ka codsanay warbaahintaba in muxuu ahay sawirro fiican laga qaado dadkii noo soo ooyey nooga soo dacwooday dhibaatada noo soo sheegay magacahooda noo sheegay waxaan rabnaa inay halkaan yimaadaan waxaan rabnaa markasta cid kastoo noo timaado waxaan dhahaynaa annagana waan raadinaynaa waana soo qabanaynaa ilaa idankii oobiga tag saldhigga xogti qor dhibaatada ku gaarta qor sidaasaan dhahayn waxaa ka mid ahaa dadkaasi gabar iyadoo dacas la'aan ah oo dhibaataysan oo ay muxuu ahay dhibaateeyeen aan muxuu ahaa inta qabannay qaar ka mid ah iyadana halkaan timid waxaan rabnaa waan soo dhammaystirnay waa keennay waxaa ka mid ahay dad iyagana muxuu ahay sidaas oo kale abayaal Soomaaliyeed oo muxuu ahay akhyaar ahaayo iyagana soo dacwooday magacoodana noo sheegayeen iyagana waxaan rabnaa inay yimaadaan waxaan rabnaa cid kasta muxuu ahay ay dhib u geysteen dadkaani gadaashayda hadda ka muuqdo aba sawirradooda aad arki doontaan inaad saldhigga timaadaan in dadkaas eedahooda iyo waxaad u haysataan iyo cadeymihii iyo wixii la cadeey la soo gudbiyo waxaan rabnaa sidoo kale waan ognahay niyad jab badanaa dadka gaaray cabsi badan ay qabaan waxa laga yaabaa inay isleeyihiin muxuu ahaa ama ha dhowto dhibaato kale kaaga timaada ama ay si u cuslaysanayaan ama ay mas'uuliyad darro darteed ay isleeyihiin muxuu adiga mobilkii raayo ka qaata ama dhibkii ku geesta waa ka maarane ka soco arintu intaa way ka weynta waxaan rabnaa qofka tuuga ee dhibka ummaddu geestay adiga ku geestay adiga kaama bilaaban ugu mana dambeynaysid bariyo gabadhaada dhaca bariyo wiilkaaga dhaca bariyo iskuulka laga dhiga weyna bariya muxuu ahaa dhibaatayna ummadda ilaa dhibkaasna uu muxuu ahaa uu gaarsiiyo inuu gacan ku dhigla noqdo qofka uu dhibkaas geesto marka waxaan rabnaa in la dhayalsan tuugada in la dhayalsan annaga oo maamulka degmada ah iyo garbahayna oo saraakiisha degmada booliiska iyo nabad sugidda iyo dhammaan ay ka shaqeynayaan waxaan rabnaa inaad nabad ku seexataan waxaan rabnaa inaad nabad iskuulada ku aadaan waxaan rabnaa in suuqaad nabad ku joogtaan waxaan rabnaa in madooyinka nabad ku martaan waxay nooga xirantaa taas
tuugada inaan iska kaashano marka hore in xogtooda la helo inaan iska kaashano qabashadooda inaan iska kaashano in meesha ugu dambaysa aan iskala soo haro laakiin haddaad tiraahdo aniga uu noqo madaxayga meerax ku xiraaho maxaa wixii la iga dhacwa ka sabraaho cidna u sheegi maayo dhibku aniga uu gaaray igu ekaado kugu ekaamayyo waxaan rabnaa marka sidaas ayaan u sheegaynaa dadka laga bilaabo saacadan iyo marka ugu horeyso warbaahinta laga soo daayo waxaan rabnaa inay yimaadaan saldhigga inay qofkay wajigeeda garanayaan oo hadda ka hor dhibaateeye sheegaan qofkay magaceeda garanayaan sheegaan qofka dhibaatada u geysta sheegaan intii ay suurtagaltaa waa qarinaynaa haddii uu sharcigu noo ogol yahay waa qarinaynaa mushkila ma lahan duruufihiisaan u tixgelinaynaa laakiin waa in xogtana soo gaarsiiya duruufihiisaan u tixgelinaynaa qofka waxaa laga yaabaa qof dariskiisa ahay oo beri meel walba ka soo dhacayo oo dhibaateeyey waxaa laga yaabaa inuu beri inuu dhibaatay karo dib u sii dhibaatay karo ka cabsanayo anaga ayaan muxuu ahay la farsamaynayno duruufihiisa sida uu muxuu ahaa oo baahidiisa ugu sheega lahay anaga ayaa u taagan inaan tuugu ka adkaan ilaa idankii laakiin waxaan rabnaa inaan muxuu ahay nonon jeefin tuugada inaan tuugada nonon jebin inaan dadka noocaas nonon jebin waxaan rabnaa intaa kadib tuugadu ehel ma leh tuugadu qaraabo ma leh deris ma leh saaxiib ma leh waa isnaqaan ma leh tuugada waxaan rabnaa inay tuugi noqdo waxaan rabnaa waalid ilmahan qaar ka mid a waalidiintooda ayaan muxuu ahay hadda mar aan fogeyn soo kala tagno qofku wuxuu ka fikirayay cunuga uu waalidku ahaa dabcan way xanuujinaysaa cunugiisa waxmaad way xanuujinaysaa laakiin waxaan rabnaa in xanuunka qofka uu muxuu cunugiisa xanuujinayo inuu ku darsado cunugiisa muxuu ka soo shaqeeyay cunugiisa wuxuu ka soo shaqeeyay hooyo ka ooyinsiiyo cunugiisan iska leeyahay markii waxa waaye waa ilmo yar oo weli 20 iyo daaheeda jiro muxuu ahay ilmaha quruxsan ee wanaagsan ee wanaag ka jecel waa jecelahay hase aatee wuxuu ka soo shaqeeyay wiilkiis wuxuu ka soo shaqeeyay waa inuu qofku ogaadaa wiilkiis hooyo ka soo ooyinsiiyay gabar yar oo ka soo ooyinsiiyay qof muxuu iska shaqeysay oo ka soo ooyinsiiyay qofkii masaajidka aadi lahaa ka aadi waayay waxaan rabnaa inuu arintaas lagu daro qorshaha waxaan rabnaa dadkan u mahad celinaa deeta ee aan dhahnay way ka tanaasuleen xumaanta waxa la mid ah kuwa kale oo degmada ka tegay oo iskaga baxay oo meelahooda kale aaday oo meelo kale oo muxuu ahay dabcan meesha xumaanta laga geystay laga fogaadaa way fiican tahay oo waxay muxuu ahay waxa qabo islaamka qabo meesha qofka xumaanta uu ku geysto inuu ka fogaado ka tago ka tooba keeno marka qaar iska tagaa jiro anaga durka ka raadimayno laakiin qofka magaciisa na soo gaaro ee magaciisa ummadda noo sheegayso intaan midaan magaciisa aqoonin ma jiro mid aanan muxuu ahay waxa uu ka shaqeeyo wuxuu yahay iyo inta walaxu dhacay aanan ogeyn way gaaban tahay waxaan rabnaa dadkana la wadaago xogtaas waxaan rabnaa dadka iyo anaga inaan isku furnaano waxaan rabnaa inaan xogaa is weydaarsano waxaan rabnaa inaan tuugada iska qabanno waxaan rabnaa inaan dhiiranaano waxaan rabnaa inaan nabad ku seexano haddii dhinacaaga ay muxuu duleel naga soo galo dadkaygu idinka mas'uuliyadda marka qayb ka ah waxaan rabnaa sidaan u dadaalayno inaan noola dadaashaan si aad nabad ugu noolaataan aad iyo aad mahadsantihiin. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.